bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan wanaagsan daawadayaal idilkiin meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan wararka ugu waaweynaa suuqa kala iibsiga maanta ay qorayaan wargeysyada kasoo kale waxaa wadamada Spain, Talyaani, Germany, France iyo Englandba. Majalada lagu magacaabo BBC-da ee dhankii wararka xanta maanta magacyada ugu waaweyn waxaa ka mid ah goolhaya Alisson Becker, Virgil van Dijk, Jadon Sancho iyo ciyaaryahan Neymar Jr. goolhayaha kooxda kubadda cagta Liverpool Alisson Becker iyo daafaca xulka Holland ee Virgil van Dijk iyada markaana kooxda kubadda cagta Liverpool waxay rabtaa in heshiis cusub ay ka siixato maadaama ciyaartooydan ay yihiin kuwa hogaamiya kooxda kubadda cagta ee Reds ee Liverpool waxay dabacsantahay 27 jirka Alisson Becker iyo 27 jirka Virgil van Dijk waxay rabtaa in heshiis amaah ama heshiis rasmi ah ka siixato oo waqti dheer ay ku sii joogaan garoonka Anfield Road ee dhaca gobolka Merseyside maadaama ay labadan ciyaaryahan yihiin halbowlaha kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Sheekadaas waxaa qoraysa goal.com ayaana sheekadan saaka qoraysa. Nadiga Borussia Dortmund ciyaaryahankeeda weerarka ugu ciyaara Jadon Sancho ayaa markaa lagu soo waramaya in aad u xiiseynayso kooxda kubadda cagta Chelsea sida Manchester United ayaana aad u xiiseynaysa balse John Terry ayaana markaana u sheegay kooxda Chelsea inay soo qaataan ciyaaryahankan balse uu dagaal adag kala kulmi doono ciyaartooyda imka joogta halka Ole Gunnar Solskjaer uu xiiseynaysa 19 sano jirka u dhashay dalka England inuu soo qaato Evan Sterner ayaana sheekadan faahfaahsan. sheekooyinka lagu weyn waxaa kamid ah macalinka hogaamiye kooxda Everton ee Carlo Ancelotti ayaa raba inuu la soo seexdo ciyaaryahanka Lazio oo dhashay dalka Talyaaniga Pierre Immobile ayuu rabaa inuu ku soo biiro kooxda Toffees Everton. ciyaaryahan Immobile ayaa kamid ah ciyaartooyda ugu fiican ee kooxda kubadda cagta ee Lazio kaas oo weerarka ka ciyaara gool badan u dhaliyay ahna hogaamiyaha zaraha dalka Talyaaniga goolalintiisa. Carlo Ancelotti ayaa aad u faahfaahsan in ciyaaryahankan uu ku wanaagsan yahay garoonka Gothenburg inuu ku soo biiriyo. sheekooyinka waxaa kamid ah Paris Saint-Germain ciyaaryahankeeda Neymar Jr ayaa markaan ku sii dhawaanaya kooxda kubadda cagta ee Barcelona kaas oo sheegay hadal wanaagsan wuxuu damacsan yahay in xidig reer Brazil uu mar kale la midoobo ciyaartooyda Luis Alberto Suarez Neymar iyo ciyaaryahan Lionel Messi wuxuu doonaya inuu ku laabto gobolka Catalonia gaar ahaan garoonka Camp Nou ayuu rabaa. warar kale ugu weyn saaka waxaa kamid ah Manchester United ayaa markaan isku diyaarinaysa in 50 milyan ay kusoo qaadato ciyaaryahan Pierre-Emerick Aubameyang inkastoo ay dagaal adag kala kulmayso kooxda Internacional iyo Barcelona oo adeega ciyaaryahankan ahna kabtanka kooxda Arsenal ayaa aad u xiiseynaya. Midro ayaana qoraysa laakiin Manchester United waxay soo dhigtay ama sheegtay qiimaha ay ku rabto ciyaaryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang. sheekooyinkaasi ayaana maanta ugu waaweynaa wararka suuqa silamida Manchester United waxay markaan wada hadal la furi doontaa ciyaaryahanka Atletico de Madrid qadka dhexe ugu ciyaara Thomas Lemar 24 jirkan ayaana waxaa target u ahaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool laakiin Manchester Evening News ayaana ka faansan in ciyaaryahan Thomas Lemar uu kamid yahay ciyaartooyda aad ku xiiseynayso kooxda kubadda cagta ee Manchester United. sheekooyinka ugu waaweynaa wararka suuqa ayaana kuwaasi ahaayeen.